kulankani oo ay ka soo qayb galeen 6 jaamacadood ee dalka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu waaweyn ee Hargeysa University, Burco University, Amoud University, Golis University iyo Nugaal University iyo jaamacadda martida loo ahaa ee Timcade oo iyadu kulankani soo golaysay ayaa diiradda lagu saarayay sidii jaamacadaha dalku ay roolkooda uga qaadan lahaayeen wax soo saarka dalka loona meermarin lahaa go'aankii madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi ee ku aadanaa in dhulka wax lagala soo baxo isla markaasina shaqo abuur baaxad loo noqonaya ardayda kala duwan ee ka howlgasha jaamacadahani. kulankani oo ay warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday wax warbaahinta si wadajir ula hadlay mas'uuliyiinta kala matalayay jaamacadaha Timcade University, Amoud University iyo Nugaal University waxaana hadalladoodii ka mid ahaa kulankan maanta ama seminaarkan wuxuu daarnaa in ardayda kulliyadaha beeraha ka qalin jabiyay ee waxbarashadooda dhamaystay aan shaqo hadda haynin sidii maxay ahayd loo hawlgelin lahaa gaar ahaan mashruuca wajaale qayb ka mid ah in ardayda lagu hawlgeliyo lana taageero loona diyaariyo habkii ay wax soo saar u sameyn lahaayeen waxaana kulleeyto maaragtay arrinkan uu ka dambeeyay ama baritaar u yahay talooyinkii madaxweynaha ee ahaa in wax soo saarka la kordhiyo beeraha jaamacaduhuna iyagoo taa ka duulaya runtii qorshe fiican ayay soo diyaariyeen oo dadka loo soo bandhigi doono dawladdan loo soo bandhigi doono ujeedaduna waxa weeye sidii xoogga aynu haysanno ee ardaydaasi loo hawlgelin lahaa ay waddankana waxay nagu soo saari lahaayeen aad baan ugu mahad celinaynaa sidaad u soo atangarayseen on time ugu timaadeen ballantii aynu lahayn kulankeennan oo daaran sidaynu u horumarin lahayn beer ay ka midaysan yihiin jaamacadaha oo loogu talagalay in ardayda ay ku qaataan practicalka workshopkani wuxuu daaraa arrinta wax soo saarka waxaan aad mahad ugu celinaynaa gudoomiyaha iyo saaxiibadii gudoomiyaha jaamacadda Timcade oo martigeliya maanta iyo bariba diyaar garowgana qaybta ugu weyn runtii ka qaatay iyadoo ay sii kordhayso dareenka ah in loo guntada wax soo saarka xagga cuntada iyo ama xoolaha noqoto ama kalluun ha noqoto ama miraha beeraha ha noqotee iyadoo la tixgelinayo baaq uu madaxweynuhu soo jeediyay barigii ololaha iyo hadda intii dawladda ahaaba oo dawladdii ugu horeysay runtii si dhab ah hadda ugu muuqata inay uga hawlgelayso arrintan inaynu calal aqal cuntadeenna wax yar soo saaro kolba sanad walba xoogay ku kordhino berito ahadana waxaan wasiirada hogaaminaya wasiirka beeraha halka noogu yimaado aan u bandhigno ka wada akhrinsano sidii mashruuca loo fulin lahaa ma aha oo qura ardayda kuma koobmaya mashruucu wuxuu noqon doonaa mid xataa beeraleyda Soomaaliland oo kale extension aanu aqoonta wax ku kordhino iyadoo dalkaba meelaha badan oo gobolada dad loo dirayo aqoon-yahana oo laga caawinayo talooyinka sida wax loo soo saaro iyagoo waarag weeyaan laakiin dhiirigelina annaga iyo dawladda jaamacadda iyo dawladda iska kaashadaan sida ay hormood ugu noqon lahayd kuna hambalyeynayna madaxweynaha iyo wasiiradiisa runtii gaar ahaan kuwa ku shaqale inay markii ugu horeysay ummadda Soomaaliland ku dhiirigeliyay wax soo saarka laguna xisaabtamo gacanna ay ka geystaan annaguna aan ka geysano halkan isugu yimi maanta campuska jaamacadda Timcade ee ku yaal Gabiley waxa isugu yimi 6 jaamacadood ee ugu waaweynaa waddanka waxaana laga arrinsanayay maadaama maamul cusub uu ka dhashay Soomaaliland oo yididiilo u keenay dadka kaasoo tilmaamay in wax soo saarka dadka lagu jihaynayo ummadda Soomaaliland lagu jihaynayo wax soo saar marka waxa laga shirayay jaamacaduhu roolka ay ku yeelan karaan sidii ay wax soo saarka uga qayb qaadan lahaayeen marka waxa isugu yimi 6 jaamacadood ee waddanka ugu waaweyn runtii dood fiicanna waa la galay si fiican qorshe fiicanna waa la soo wadaa oo dawladdana loo bandhigo si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa ibafur ah horumarinta wax soo saarka beeraha maadaama ay jaamacadaha dalku u guntadeen inay xukuumadda ku garab istaagaan sidii dalka wax looga soo saari lahaa. Waayaan la xaji warbaahinta qaranka magaalada Gabiley.